الصلاة خير من النوم. صلاة الصبح marka aad furaashka isku rogaysid sidoo kale hurdada aad macaansanaysid oo muadinkuna ku dhawaaqayo salaada ayaa ka khayr badan hurdada weliga naftaada ma weydiisay muxuu muadinku u leeyahay weedhan micnaheedu waa maxay sidoo kale ma isweydiisay isagoo muxuu iskaga seexan waaye oo uu furaashkiisa iyo bustihiisa uga soo kacay maalina ma isweydiisay maxay salaadu uga khayr badan tahay hurdada kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo ku saabsan ahmiyadda salaada gaar ahaan salaada subax maadaama uu aysan dad badan oo dhalinyaro iyo waayeelba ah aysan ku baraarugsanayn qiimaheeda iyo ahmiyaddeeda magacaygu waa Maxamed Cali. haddaba marna ma isweydiisay iyadoo ay hurdaduba wanaagsan tahay sidoo kale ay cibaado tahay haddana muxuu muadinku u leeyahay salaada ayaa ka khayr badan hurdada salaada ayaa ka khayr badan hurdada sababtoo ah salaada waxaad ajiibaysaa oo hor istaagaysaa sidoo kale isu duleynaysaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiinse hurdada waxaad ajiibaysaa naftaada iyo shaydaanka salaada ayaa ka khayr badan hurdada oo ka wanaagsan maxaa yeelay salaada waxaa ku degaya oo ku raaxaysanaya ruuxda hurdadana waxaa ku raaxaysanaya jidhka haddaba ma ruuxda khayr badan mise jidhka khayr badan salaada ayaa ka khayr badan hurdada maxaa yeelay salaadu waa raaxo waa nolol sidoo kale waa deganaansho hurdaduna waa dhimasho iyo dan la'aan salaada ayaa ka khayr badan hurdada sababtoo ah salaadu waa nolol maxaa yeelay dib ayaad u soo kacaysaa Ilaahay baad caabudaysaa ruuxdaada ayaa soo kacaysa sidoo kale jidhkaagii baa Ilaahay caabudaya laakiin hurdadu waa dhimasho salaada ayaa ka khayr badan hurdada maxaa yeelay hurdada waxaa wadaaga oo ka siman mu'minka munaafiqa iyo kaafirka sababtoo ah intuba way seexdaan laakiin salaada waxaa tukada oo u kaca mu'minka oo kaliya munaafiqa iyo kaafirka midna uma kaco salaada salaada ayaa ka khayr badan hurdada maxaa yeelay dadka salaada subax tukanaya waxay ajiibeen oo la kulmeen khayr weyn sidoo kale dadka salaada subax tukanaya ay buuxinaya masaajida wajigoodu uu nuurayaa sidoo kale qalbigoodu uu nuurayaa waqtigoodu uu barakaysan yahay farxad ayay ku jiraan waxay ku jiraan firfircoon iyo nadaafad haddaba maxaa ka qurux badan oo ka wanaagsan salaada qofka salaada faralka ilaaliya Ilaahay ayaa ilaaliya oo dhowro adduun iyo aakhiraba nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka salaada subax tukada Ilaahay xifdigiisa ayuu ku jiraa sidoo kale labada ragcadood ee ka horeeya salaada subax waxay ka khayr badan yihiin adduunka iyo waxa ku dhex jira ee dhex yaalaba salaada subax quraanka la akhriyo Ilaahay waxa uu ku tilmaamay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا quraanka la akhriyo salaada subax malaa'igta ayaa soo xaadirta sidoo kale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku bishaariyay janno kuwa tegaya ee tukanaya salaada subax qofka tukada labada qabow oo kala salaada subax iyo salaada casar waxa uu gelayaa jannada haddaba micnaheedu ma aha in inta kale laga tegayo salaadaha laakiin sabab qofka labada salaadood aad ugu dadaalo jamaacadoodana ilaaliya jannada ayuu gelayaa haddaba inaad salaada ilaaliso ayaa ka wanaagsan oo ka khayr badan inaad dayacdo salaadaha oo aad fududeysato sidoo kale ay kugu dhaafto ciyaar iyo waxaanay dantaada ku jirin maxaa yeelay salaadu waa tiirka labaad ee islaamka sidoo kale waa shayga ugu horeeya ee lagu weydiinayo lagana xisaabinayo maalinta aakhiro haddii salaadaadu ay hagaagto dhammaan acmaashaada kale way hagaagayaan haddii xumaatana dhammaan acmaashaada kale way xumaanayaan haddaba mar walba salaada ilaaliyo ku dadaal sidoo kale ha fududeysan